Alex Navalny oo ah nin si weyn u dhaliila aqalka Kremlin ee Ruushka ayaa la sheegay in la xiray kadib markii diyaaradiisa ay soo caga-dhigatay garoonka ku yaala magaalada Moscow 5 bilood kadib markii uu ka badbaaday sumeyn loo adeegsaday sunta waxyeeleysan neerfooyinka. Mr. Navalny oo 44 jir ah ayaa la arkayay isagoo ay booliisku u sii kaxeynayaan goobta lagu baaray baasaboorada ee garoonka. Dad badan ayaa horey waxay isugu soo baxeen garoonka Vnukovo ee ku yaala magaalada Moscow si ay u salaamaan, balse diyaaradiisa ayaa waxaa loo wareejiyay garoon kale. Dadka u ololeeya arrimaha bulshada ayaa waxay sheegeen in isku daygii dil ee uu ka badbaaday Alexei ay ka dambeysay xukuumadda Ruushka, balse waxay intaasi iska fogeysay aqalka Kremlin ee looga arrimiyo dalka Ruushka. Waan ogahay inaan saxanahay, waxa aan ka baqayo ma jiro. Mr. Alex ayaa sidaas u sheegay taageerayaashiisa iyo warbaahinta ka hor inta aan la xirin. Qareenka Mr. Navalny ayaa loo diiday inuu markii la xirayay uu sii raaco. Waxaa la arkayay isagoo oo shuminaya xaaskiisa Yulia oo ay iska soo raaceen Jarmalka kadib markii ay booliisku uga digeen inay awood u sheegan doonaan haddii amarada la siinayo uu ka dhig adeego.